الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدة أذ كالسوني ugu abuuri karta naftaada kalsoonidu waa shay aad u qiimo badan bal waxa la yiraahdaa waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee keensada qofku inuu hore u socdo qofku inuu guul gaaro qofku inuu wax qabsado haddaba daawada qodobkeena koowaad hadaynu soo qaadano waxa uu weeyaan inaan isweydiino marka ugu horeysaba waa maxay horta kalsoonidu maxay tahay qofkaasi kalsooni buu haystaa iyo isku kalsooni markaynu leenahay maxaynu ula jeednaa daawada kalsoonidu waxa weeyaan waa inaad aamintaa kartida awoodda khibradda iyo xirfadaha uu aad adigu leedahay ee Ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa go'aanka aad qaadatay inuu sax yahay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa hadafka aad u socotaa inaad gaari karto oo xaqiijin karto waa inaad aamintaa dawada qodobkan wuxuu tilmaamayaa haddii aad rabto kalsooni inaad naftaada ku abuurto waa in laga helo inaad aaminto marka ugu horeyso waxaan aad adigu leedahay Ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa muuqaalku Ilaahay ku siiyay aad leedahay waa inaad aamintaa oo raali ku ahaataa waa inaad raali ku ahaato aamintaa maskaxdu Ilaahay ku siiyay awoodaha qarsoon ee runtii aadka u fara badan ee Ilaahay ku siiyay waa inaad aamintaa waa inaad aamintaa ahdaafta aad dejistay inaad gaari karto oo xaqiijin karto waa inaad aamintaa go'aamada qaadata inay sax yihiin oo aad ka noqon haddaba daawada qodobka ma kana tilmaamna haddaba kalsoonida iyo waxa uu yahay waxa muhiim ah inaan ogaano kalsoonidu muhiimadda leedahay waa maxay uga baahanahay kalsooni inaan helno daawada kalsooni marka aad hesho waxa ugu horeeyay helaysaa waa maxay waxay ku gaarsiinaysaa hadafkaaga iyo guusha ku gaarsiinaysaa haddii aanad kalsooni naftaada ku qabin meel u dhaqaaqi maysid bal marka soo istiraado wax qabo marka soo istiraado hadafkaaga xaqiiqi maxaa imanaya kalsooni darra imanaysa dib aad uga soo noqonaysa marka waxa ugu muhiimsan ee kalsoonidu keenta waa maxay inaad gaadho ahdaaftii aad naftaada u dejisay daawada muhiimadda kale ay leedahay inaad runtii kalsooni naftaada ku abuurtaa waxa weeyaan marka aad kalsooni naftaada ku abuurto oo naftaada isku kalsoon tahay waxa imanaya runtii saacada imanaysa raaxa dareemaysa awood baad dareemaysaa oo sideed u dareemaysaa waxaad dareemaysaa tusaale ahaan marka aad wax qabsato ee meel aad gaadho naftaada way ku farxaysaa haddii aad kalsooni isku qabto haddii aad kalsooni isku qabin maxaa imanaya waxa imanaya dadka inaad eegto maxay ka sheegayaan hadday dadku markaa yiraahdaan wax fiican baad qabatayna naftaadu markaas ku raaxaysanaysaa haddii kale ku raaxaysan mayso marka meeshii maxaa yimi waxa imi wax qabadkaaga iyo raaxadii aad ku raaxaysan lahayd maxaad ku salaynaysaa dadku waxa ay ka leeyihiin marka soo eegto dadku waxay ku leeyihiin iyo dadku waxay ka sheegayaan iyo dadku fikrad ay ka qabaan markastoo taad awoodda saartana waa markasta oo kalsooni darro ay kugu dhacayso bal kalsoonida waxa ugu muhiimsan laga rabo waa maxay inaanad eegin dadku waxay ka leeyihiin siday dadku ku arkaan inaanad naftaada u arag hadday dadku ku arkaan inaad maskax gaaban tahay oo adiguna naftaada sidaa u aragto markaas ay kalsoonida ka lumaysaa haddii aad naftaada u aragto inaad qurux badan tahay oo kalsoonida aad leedahay maxay imanaya inaad runtii aad nafta saacadiyo raaxaha dareento laakiin marka aad dareento dadku waxay ka sheegayaan inay muhiim tahay oo markay dadku ku yiraahdaan waad qurux badan tahay ama ma qurux badnid had reegooda qaadanayso maxay imanaya waxa imanaya inaad markaas walaacda imanaya markaas inaad ka warwarto dadku waxa ay ku leeyihiin haddii kelmad yar dadku kugu yiraahdaan sidaas ma tihid naftaadu way warwaraysaa marka maxay kalsoonidu keentaa kalsoonidu waxay keentaa qofku inuu runtii dago naftiisu ay degto raaxahu helay keensanaysa oo eegin dadku waxay ka sheegayaan iyo waxay ka leeyihiin daabay kalsooni haddaad isku qabto waxa imanaya go'aamadaad qaadanaysaa mawaaqifta aad istaagaysaa inay mid noqdaan waxaad noqonaysaa qof markuu go'aan qaato aan kana noqon sababtu waad ku kalsoon tahay kalsooni baad go'aankaaga ku qabtaa inaad saxsan tahay baad soo aragtaa laakiin markaad isku kalsoonaan maxay imanaya inaad runtii go'aanka ka noqoto marba go'aan ka noqoto laba noqoto daawada markaad isku kalsoon tahay maxay imanaya fikirkaaga inaad faafin karto ra'yigaaga inaad sheegi karto ra'yigaaga inaad cabiri karto ayaa imanaya haddii aan isku kalsoonin maxay imanaya ra'yigaaga inaad ka shakido oo istirada malaha waa la diidi malaha dadku waxay roondaan ra'y fiican maaha ayaa imanaya daawada markaad isku kalsoon tahay waxay imanaya ummadda inaad u jeedin karto ummadda inaad la hadli karto adoo isku kalsoon
laakiin se haddaad kalsooni qabin maxaa imanaya hal kalma inaanad jeedin karin ood isku dhaxayacdo ayaa imanaysa daawada markaad kalsooni isku qabto waxaa imanaya naftaada inaad ixtiraamto markaad naftaada ixtiraamto maxaa imanaya dadku inay ku ixtiraamaan laakiin se haddii aanad kalsooni isku qabin maxaa imanaya naftaada inaanad isku ixtiraamin taasi maxay keensanaysaa adigana inaad ku ixtiraamin haddaba qodobkaasi waa qodobkii koowaad oo tilmaamaya marka kalsoonida laga hadlaayo kalsoonidu inay tahay qofku inuu aamino awoodaha qofku haysto awoodo badan baad haystaa awoodaha waanad aamintaa meel inaad gaari karto wax inaad noqon karto wax inaad keeni karto waa inaad aamintaa hadafkaaga inaad xaqiijin karto waa inaad aamintaa inaad maskax badan tahay maskaxdada aad u samayso markaad waxaa aaminto oo inaad eegin dadku waxay kaa leeyihiin iyo waxay kugu sheegayaan kalsoonida haysa haddaba qodobka labaad daawada waxaa weeye kalsoonida markay qofka ka lunto maxaa lagu garanaya calaamadaha kalsooni darradu leedahay waa maxay daawada kalsooni darrada waxaa lagu yaqaanaa oo qodobkeeda koowaad ah waxa loo yaqaana baqaha qofku marka aanu isku kalsoonayn uu baqanaya marka la yidhahdo imtixaan baa lagaa qaadaya oo runtii aanu ku kalsoonayn imtixaanka inuu baasiya in kale maxaa imanaya imtixaanka inuu ka baqdo ayaa imanaysa baqashaa meesha imanaysa daawada waxa kaloo lagu gartaa kalsooni darrada waxa lagu gartaa qofka inuu shaki ku bato mar alla markuu israado wax qabo qofku uu shakinaya waa is oranaya war malaha waxaa qabanaysa malaha ku guulaysanaysa malaha waad ku fashinaysa shaki baa qofka soo galaya daawa calaamadaha kalsooni darrada lagu garto waxa ka mid ah qofka oo diida isbedel qofka oo israada haddaad isbedesho bilaa wax iska kaa bedela bilaa dhibaato kugu dhacda bilaa wax kala imaada marka qofku wuxuu yahay isbedel sababtu waa maxay kalsoonida naftiisa ku qaba kalsoonida aqoontiisa ku qaba kalsoonida kartidiisa ku qaba marka wuxuu is arkaya haddii meesha isbedel ka dhaco in meesha laga saarayo inuu soo arkayo calaamadaha kalsooni darrada waxaa ka mid ah adigoo dib u dhiga waxaad qaban lahayd maanta hawsha ku tahay ee aad qabato ay dib uga dhigaysaa saada dib uga dhigaysaa maxaa intaa keenaysa kalsooni darrada haddaad naftaada ku kalsoon tahay oo isleeda waxa waad qaban kartaa markaas ku dhaqaaqaysa dawada kalsooni darrada waa calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah qofka oo negative noqda qofka oo naftiisa ay aaminto wax kasta waxba inaanu qaban karin meel inaanu gaari karin wax kasta ay runtii dhinaca uga eeda markaas laalaya qofkaas runtii kalsoonidiisa aad u weynaya oo naftiisa kalsooni badan ama qabuul u arka waxba inaanu qabsan karin daawada kalsooni darrada waxa lagu yaqaanaa caajis baa lagu yaqaanaa qofka inuu caajiso waxba qaban kari waayo dhaqaaqi waayo isagoo runtii isleh haddaad dhaqaaqdo tira wax qabo bilaad ku fashilantaa